محمد إسلام وعن الله همبليو شن إيا 20 سنة burburkii ka jiray Soomaaliya qaasatu gobolada Jubbooyinka ninkii naga saaray waaye ninkii waxa way iftiinkana keenay Soomaali isu keenay dadkii isu keenay maxaaleysay dadkii isu keenay Axmed Maxamed Islaam waxa la hambaliyo madaxweyne waa ku faraxsanahay ninkii isu keenay saddexda gobol oo Jubbaland waxaan leeyahay hambaliyo gabdhaha dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ee jooga dunida daafaheeda waxaan leeyahay ku soo dhawaada hambaliyada maanta ka dhacday waxa marqaati ah oo marqaati barnaamij ah doorashada xor iyo xalaasha ahayd ee sida aan qabiilka ku dhisnayn ee qarannimada ku dhisnayd oo doorteen xildhibaanada Soomaaliyeed ee reer Jubbaland waxaan leeyahay hambaliyo xildhibaanadeena hambaliyo sida geesinimada leh ay u doorteen Axmed Maxamed Islaam waxaan leeyahay hambaliyo anoo ku hadlayo codka gabdhaha haweenka Jubbaland waxaan leeyahay hambaliyo mar labaad hambaliyo mar saddexaad hambaliyo saddexda gobol dadka u dhashay hambaliyo taageerada maanta ka socota Luuq iyo taageerada ka socota Doolow taageerada ka socota Balad Xaawo dhammaan waxaan leeyahay hambaliyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن والسلامي أنت هل كان جوتك سوق لنتي حملة الله حملينا يو مدن الشيخ محمد إسلام وحملينا وأنا مع السنة هاي أنا واد دورني وأنا كان دورني لكو وأنا كان مدعي أن هالديوانا جبلان وما حسينين ما دام أي دورته مدن محمد إسلام هذا هو محط لنا ذكر كل صوت هذا كاس جبلان وهل متواية لو ما وهل قبل لنا جبلان كسور دوانا حمد الله حمدنا مذهبنا وأنا كفر حسناي وأنا كفر حسناي وأنا حسناي صور دوانا كسور دوانا حنبلي مدحوينا كحجينك دولة جبلان ووكيلك مدحوينها جبلان وزير هذا وزير كحجينada golaha xildhibaanada salaadiinta shacabweynaha Jubbaland yar iyo weynba qolo fudud iyo qolo cuslaatayba maanta waxaan leenahay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib maanta waxa loo yimid waa taageerada dawladda Jubbaland oo shin dhalatay weeye waa shin dhalad bishu marna waa toomar marna waa shin dhalad heshiiskii Addis Ababa oo maanta dhammaystirmay oo la gabagabeeyey oo dawladda Jubbaland oo laga baxay kumeelgaarkii Jubbaland ay dhageysta kumeelgaarkii aad ka baxdeen dalaandalkii waad ka baxdeen dalaandal waxaa la yidhaha ilmaha markii gacanta la wada daadaha baa la yidhaahdaa daadihiintii waad ka baxdeen heshiiska Addis Ababa waa la dhameeyey kumeelgaarkiina wuu dhammaaday waxaad tihiin dawladda Jubbaland oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya sidaa darteed ma raba hadal inaan badiyo maanta waa farxad waa hambaliyo yay u soo hoyatay weeye waxay u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay u soo hoyatay guushaas laba waxay u soo hoyatay gaar ahaan dawladda Jubbaland oo maanta shin dhalatay oo la arko inay markhaati madoodan tahay meesha ay taagan tahay waxaan leeyahay waxay u soo hoyatay dastuurkii Soomaaliya ay ku heshiisay oo uu madaxweyne ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hambaliyaan leenahay waxay u soo hoyatay madaxweynaha Soomaaliya dastuurkii uu ku fadhiyay ee uu hogaaminayay yay u soo hoyatay weey Jubbaland baa sidaas leh saasay u soo hoyatay waxaan rabaa marka inaan raaciyo Jubbaland waxaan leeyahay hal ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hal Jubbaland hal baan leeyahay idinku waad dhalateen waad gaamurteen
way dhammaatay arrintiinnii waxaa laydinka rabaa gobollada soo socda ee caqabadihii aad soo marteen ay hor yaallaan waa inaad gacanta qabataan intaa ma ballan qaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo halkan qurqurraha aan ugu gelinnay oo maanta guusha federaalkii ay soo hoyatay 2016ka inaad hormuud u noqotaan oo madaxweynaha taxriishi uu ku tufay aad aqbashaanna ma intaa ma yeesheen waxaan kaloo leeyahay ishii bugta ay ku bakaacso xanta dhex taalla xamar iyo kismaayo way dhammaatay annagu maanta waan gaamurray dowladda federaalkana madaxweynaha waa asagaa hoggaaminaya annaguna lambarka labaad waan ciriirsanaynaa warkaan iswegi kuwii meelaha xanta waday waa sidaas waxaan rabaa inaan waxoogaa ku daro kaftana shalay markay doorashadu socotay puntland markay konton iyo waxoogaa madaxweynuhu marahayo yay hambalyada bilaabeen waxaan jeclahay gobollada isha isku haya hambalyada ha fidiyeen haddaad fidisaan alxamdulilah haddaad fidi weydaan rabbilcaalamiin mar hadday jubbaland istaagtay madaxweynihii federaalkaana aan lambarka labaad ciriirsayno soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo dastuurka soomaaliya ninkii meelooga dhaca ha dhaco jubbaland gardaadintooda ha guulaysato soomaaliya ha guulaysato madaxweynaha jubbaland ee 4 sano wuxuu ballan qaaday waxaa ballan qaaday jubbaland baa ballan qaaday siduu u ballan qaaday weeye ha noolaado ha israacdo jubbaland soomaaliya ha israacdo dabadhilifku ha dhaco السلام عليكم ورحمة الله ujeeddada aynu isugu nimi horta inaan isu sheegno waxaan isugu nimi waa taageero bannaanbaxeenno waxaan wakhtigeenna qaaliga u soo dhulinnay ardaydaan iskoollada uga keennay waa taageero waaye yaan taageeraynaa marka waxaan taageeraynaa kow doorashadii madaxweynaheenna axmed maxamed islaan 4 sano soo socota loo doortay madaxweynaha dowladda jubbaland kow taasaan taageeraynaa tan labaadaan taageeraynaana waxa weeye dastuurka dowladda jubbaland oo isagana dhowaan la ansixiyey bannaanbixaan u samayn lahayn taageeradiisii roob baa maalintii naga celiyey maantaan isku darsanaynaa iyadana waa taageeraynaa waxaan kaloo taageeraynaa iyadana baarlamaankii jubbaland oo isna intuu dhammaystirmay doorashadii ugu horraysay sameeyey isagana waana u hambalyeelaynaa waana taageeraynaa marka horta taageeradaasaynu meesha u nimi waxaan rabnaa inaynu taageeradeenna ka dhabayno waxaan rabnaa inaynu dawladdeenna la shaqayno dawladda jubbaland waa dhammaystirantay wax hadda u haray oo jiraan ma jiraan waa inoo dhammaystirantay madaxweyneha 4 sana la doortay baarlamaankeennii dastuurkeennii waxaan sugaynaa un madaxweyne oo golihii xukuumadda noo soo dhisay insha allahu waxaana rajaynaynaa inay noqdaan kuwo gudan kara inuu madaxweynuhu waxaan ka codsanaynaa noo soo xulo kuwa gudan kara xilkooda oo gaarsiiya ummadda tan meesha ay higsanayso u socoto waxaan rabnaa inaan halkan uga faa'iidayso jaaniskan waxaan u mahadnaqayaa horta ardayda dugsiyada kismaayo oo maanta ka hor aan noo iman jirin waxaan garanayaa maanta xaaladdu tii hore waa ka duwan tahay markee waxa waaye ardaydii waa yimaadeen ardaydu waxaad ogaataan inaad tihiin mustaqbalka ummadda soomaaliyeed madaxdii berri inaad idinku tihiin haddaad ka maqnaataan taageerooyinka iyo meelaha dawladda lagu taageerayo waxa weeye ma shaqaynayso sidaa maanta aad u joogtaan ayaa laydinka rabaa maalin walba inaad timaadaan ma garateen war intaan ma ogoshihiin waxa weeye maalin walba inaad timaadaan baa laydinka rabaa barnaamijku waa dheer yahay hambalyadana waxa weeye waa uun soo gudbinaynaa hadda hambalyaan gudbinaynaa wax kaloo khudbadaa meesha kama furra aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan leeyahay jubbaland ha noolaato jubbaland ha noolaato madaxweynaha jubbaland ha noolaado 4 sano guul ilaahay ha ugu dhammeeyo innagana kuwii ka daba guulaysta allahna ka dhigo soomaaliyana ha noolaato ha midowdo ha israacdo khalkhalka iyo khaladaadkuna ha ka baxeen wasalaamu calaykum maxamed wacala alihi wasallam runtii waa maalin weyn waa maalin taariikheed waa maalin soo afmeertay ama soo afmeertay broseskii dheeraa iyo ku-meelgaarnimadii ay soo martay dawladda jubbaland waa maalin weyn oon cod dheer ku taageerayno haddaannu nahay shacabka jubbaland doorashadii xaqa ahayd
ee dhacday 15kii bishan August taas oo uu ku soo baxay mudane madaxweyne Axmed Maxamed Islaan taas oo muujinaysa soona afjartay processkii dheeraa ee soo martay Jubbaland waxaan u baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Jubbaland inay sii wadaan hiigsiga iyo midnimada si ay u gaadhaan barwaaqada iyo horumarka dalkooda waxaan cambaaraynaynaa haddaanu nahay shacabka Jubbaland mooshimada iyo curyaaminta ka soo bilaabatay ilaa iyo dawladdii markii lagu dhawaaqay dawladda ilaa iyo hadda taagan waxaannu leenahay qolyahaas inay u jeedsadaan dhisidda iyo horumarinta shacabka intay wakhtiga gelinayaan waxa aan dan u ahayn shacabka Soomaaliyeed waxaan mar labaad soo dhawaynaynaa haddaanu nahay shacabka Jubbaland madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ee loo doortay 4 sano inuu sii wado siina dhiirigeliyo waddadii uu jeexayna uu tuso kuna daydaan dhammaan mas'uuliyiinta Soomaaliyeed lana yimaadaan samir iyo adkaysi aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaah